noloshii baa la isugu yimi weeye waxa meesha keen isugu keenay waxa kale isugu ma jirin noloshii baa keen la isugu keenay inaynu halka maanta keen isugu keeno ganacsato iyo odayaal khiyaar oo dhan halka isugu yimaadaan taasaa keentay waxaan leenahay arrinta maanta keen isugu keentay waxaanu aad ugu xunnahay inay arrintaas u dhacdo maanta kadib boosaadno xirraato in asbuuc ka badan ama 8 ama 9 ka badan in xirraato waxa weeye arrintaas arrin qabata maaragtay ama aynu sugaynay maaha nibba kalkay wuxuu yiri maraanu shiraan gari u joognay ma filayn buu yiri 7 baa jiritaan inaan u soo joogaayo ma filayn buu yiri tan inaan maanta u soo joogaayo ma filayn maanta tan inaan soo gaarayno inagoo intaas burbur ku soo jiro ma filayn maanta inaan halka gaarayno waxa filaynay ma in kadib oo soo maanta inta aynu soo joognay oo ku soo kabanay oo Soomaali halka laga soo maartay Soomaali oo dhan isugu timi oo halka ilaaha ko laga ambaqaaday oo dawlad Soomaaliya laga doonay inay maanta xirraato oo nin Talyaani oo xirraato oo dadkii u banaanka ka soo dhigo waa waxayna sugayn weeye nasiib xumadaasuna waa mid timi weeye aad iyo aad baan uga xunnahay arrinta noocaasa inay dhacdo marka hore waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha Puntland iyo xukuumaddiisa iyo golihiisa baarlamaanka arrinta firsad la'aanta ka dhacday inay dib uga noqdaan baan ugu baaqaynaa waayo waxa weeye wax wanaagsan ma noqon waxa weeye arrintii sax ma noqon waxaad noo sheegteen waxba ka khaldamay wax saxana ma noqon waayo waxa weeye waxaad noo sheegteen horumar baa noo sheegteen in wax la qabto dalka ninna ma diidan waa loo baahan yahay dalku horumar iyo wanaag iyo kaaba dhaqaale loo sameeyo laakiin waa ka bedelan tahay wax ka bedelan baa meesha ka soo baxay waxaan leenahay arrinta gadaal ugu noqda ka bedela waxa dhacay meesha ka dhacay dib ugu noqda wixii aan ina qabanna waxa weeyaan leedin la qaadamay dalkuna ma yeeli karo inuu in yar intay samayso wixii doonto ku samayso ninna ma yeeli karayo dalka mas'uuliyad baa leedin diiday mas'uuliyadda haday dayacanto dhinac kale u dhawaacato waa leedin sheegaya waa leedin kala xisaabtamaya idinka dawladahan intaas aan leenahay maamulka Puntland baan inta leenahay waxaan u sheegaynaa dawladda sare oo maaragtay federaalka waxaan u sheegaynaa dalka mas'uuliyad baa qaadeen Soomaaliya mas'uuliyad u qaadeen dalku ma aha in jaamad loo kala googooso hadba jaamba maalin la iibsho dalka iyo dalku noqon waxaan kugu baaqaynaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka dawladda federaalka ugu baaqaynaa inaanu dalku noqon dal la googoosto maalin baqay goosato meel lagu goosto inaanu dalku noqon baan ugu baaqaynaa waxana ay ka qabtaan in arrinta tasoconaysa maantay oo dekadii ay taagantahay u taagantahay inay wax ka qabtaan baanu doonaynaa haddii wax ka qaban weydo dawladda Puntland wax ka qaban weydo inay arrinta soo faragelisaan doonaynaa waxaad garanaysaan in dalka Imaaraadka xoolaha iyo waa lagu ladnaa wala tagi jiray xoolaha la geey jiray waxba laga maartay loo ganacsi tagi jiray laakiin waayadka waa naga xiraawo Cumaan baa xoolaha Soomaaliya oo hadda Cumaanna waata maanta shalay ku hanjabtay hadday sidaa ku sii socoto waa ka sii fiirsanayna Imaaraadku dekadii u qabsado Soomaaliya waa ka fiirsanayna waxa weeye marka xoolaha hadii la xiro dekadiina xoolaha ganacsigiina la xiro aad iyo aad baan waa wax Soomaaliya oo taabanaya weetaan hal ogaad guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan reer Puntland waxaan leenahay dibatan ilmaha yar iyo ilmaha qofka weyn sidoo wada taabanaysa ganacsato iyo shacabka caadiga bay ku dhici doontaa arrinta ogaada waxa la qarinaayeen warqadaheedii waa la hayaa waa soo bixin suuqan waa soo bixin baa dekada ma soo gali kadhaani qoraaladina waa la wixii jiray dawladdu maalin waxay tiraahdaa waxba kama jiraan maalin waxay shalayna shirku ugu dameeyay maalin uu isugu yimaadeen golaha wasiirada meesha isugu yimaadeen warkii ka soo baxay iyo wixii la isla yiri waan ka warhaynaa waxaan leenahay dalka sida tan dalku ku jiri maayo saxna ma noqonayso sidaas noqomayso nin intuu yimaadona dadka wafduubnaa maayo gaari yaaya sida ma salsida inuu idka ka cisho yiraahdo ma bixaayo aqbali mayno waxaan aqbilaynaa iyo baartay yaan waqtiga iyo dadku yaan madaxa la isku geeno dadkana la isku dhibin waxaan ugu baaqaynaa arrintaas arrinna maraysa maaha in xoolihii wax kasta cirka lagu shareero doontii la yiraahdo 14 bay noqonaya borjaajkeedu noqonaya markabkii 30 buu noqonaya intii lagu soo kareeyay maaha waxa weeye dalka waxaan leenahay dalku waxa weeye dhibta iyo dhibaatada laga daayo waxaan ugu baaqaynaa dalka waxaan ugu baaqaynaa ummadaha caalamka waxaan ugu baaqaynaa oo Imaaraadka waxaan ugu baaqaynaa warsharkaada adduunka ku soo dhameysay sharkiini waana soo gaaray nagala noqda sharbaatihiin sharkiini waana soo gaaray sharkaas Soomaaliya budda ku soo dhameyseen Afrika iyo dawladaha Carabta ku soo dhameyseen waxaan leenahay Imaaradow hadda isla tiraadeen dadku waa burbure ka faa'iideysta murmimihi waa nool lahay
waxaan ugu baaqaynaa in dawladda imaaraadka caalamku indhaha saaro iyo jeedaashaanin inay dadkaygii marna soo tarxidho marna xoolaha naga xidho marna ilaah ku cadaabinay qayb xirxirato marna ayna dhacdo intaa midna ka aqbali kari mayno maantana in maaragtay shakhsiyaadii ka soo iibshaanayn inay naga iibshaan annaga nolosheedii ka iibshaan yeeli kari mayno waxaanu aqbilayno maaha waxaanu leenahay dawladda Soomaaliya waxaanu leenahay arrintaa madaxweynaha waxaanu leenahay madaxweyne Farmaajo dalka hore baa u tiri dalku iib maaha dadkuna iib maaha tii baanu ka warsugaynaa waxaanu ka warsugaynaa waa taa weeye mas-uuliyadda qofka waxa weeyaan hadduu mas-uuliyaddiisa nin walba dayoona isagaa aakhiriga adduunka lagala xisaabtami doonaa waxaanu doonaynaa in dalkii loo turo dadka loo turo masaakiinta loo turo dadku waa dhiban yahay abaaraa la soo maray ganacsigii baa iska xumaaday dhaqaalii baa xumaaday in dadkii loo turo aanu doonaynaa waxaanu doonaynaa nin annaga maalin walba taxaabaya in maaragtay maanta naga soo dabato ma doonayno maaha dadka ma diidana dadakanu horumar ma diidana waanu ogol lahay in dalkii la hormariyo wax la qabsado wax noo kordhaano intaanu doonayno weeye laakiin turjumaadda goortaas intaa tiraahdo si kalaa loo rogayo waa naqaan shaqada lagu shaqaysto waa naqaan waxaa la odhanayaa 4 nin baa shigiyo waxay yihiin aan la garanay waxaa la odhanayaa nimanka waxa ka horumarkay ka soo horjeedaani waa caadaa laga dhigtay waxa caadada laga dhigtay waxaan uga digaynaa dadka caadada ka dhigtay inay iska daayaan caadada waxay ka dhigteen in la iska daayaan ugu baaqayna dadka waxa dhabtaana hala isugu yimaado waxa weeye dalkii annagu horumarkiisa wanaagiisii baanu doonaynaa waxaanu kala doonaynaa ma jiraanin waxaanu leenahay shakhsiyaadka kii dooyaa keenay waxaa la yidhi warkan muxuu ah waa dullaal dulliya kii ganacsanay xoolaa wey waxaa la yidhi wax ma gadaanin dad bay xoola ka dhacaanin kii ganacsanaya waxaa la yidhi karmaha waa dullaal odayaashii waxaa la yidhi ma jiraanin oo ilaah ku adeegay waa kuwa meelaha qaaqilayaalka ah waxaas dadka kala dilaaya laga daayaanu leenahay dadka waxa kala dilaya ummadda kala fogeynaya laga daayaan leenahay Puntland waxa weeye maslaxadeedu wada jirkeeda iyo wada socodkeeda iyo danteeda iyo maslaxadeeda bay maaragtay ku soo caanamaashay teedii in loo daayaanu doonaynaa shakhsiyaadkaana in meel looga soo wajeestaan doonaynaa dalka qaribaya waad ogtihiin waxa ka dhacay baarlamaanka Puntland waad ogtihiin waxay wax ku soo bixiyeen waad ogtihiin caalamkuna waa u yahay waxaanu leenahay waxa yaalaha dhacay ha laga fiirsado waxaan ugu baaqaynaa maamulka Puntland uu dib u eego arrinta tan isa saxo shacabkuna waxa weeye wixii saxiitaan waa soo dhaweynayaan guud ahaan waa soo dhaweynayna wixii khaldamay binaadamku waa khaldamaa qof aan khaldamin ma jiro waxa weeye la hadla waa u sheegaynaa ninkaa gaalka halka aad keenteen haddii inaad naga kaxaysaan baanu doonaynaa inaad naga kaxaysaan baanu doonaynaa ku wada noolaamayno in annaga gumaysi waqtiga xaadirkaa isticmaalkii maaragtay 40 iyo maanta inaanu soo maanta isticmaal galno ma doonayno ninkaa waxaan ugu baaqaynaa aad keenteen oo aad la heshiiska la gasheen inaa ama wax saxan noo keentaanin ama aad naga kaxaysaanin laakiin dekadii yareedo talyaani uu noolisa waagiisi aad barkeetay meesha inaan maanta isku qabsanno nin talyaani isku qabsanno oo dawladda dooyaa u saaro annagana qarka noo eriyo oo ma soo geli kadhaan yidhaahdaanin waxaanu aqbilayno iyo waxaanu sugayno maahay taa ogaada haddaan nafar naga harayn taa ma aqbili karayno taa aqbilayno haddeeraanu ku idiin sheegaynaa inuu yidhaahdo meesha waa layga iibsho loogu hanjabo inuu yidhaahdo ma soo geli kadhaan yidhaahdo inuu dadkii masaakiinta bannaanka u saaro inuu hadba meel maaragtay meel kaya suuqa looliyo waxaan ma aqbili karayna madaxweynaha Puntland waxaan ugu baaqaynaa arrinta tan wax ka qabo xaqiiq baan kuu sheegaynaa wax ka qabo arrinta tan haddaadan ka qaban waxa weeye leeyahay dawladda waaweyn baa wax kan ku tegey oo madaxweynaha ku tageen waxaan ku leenahay wax ka qabo hawsha yaan dadka la maaragtay afarinta wiilal iyo cabdibilayaal la soo ururido hadba yaan waxaas waa ka weynaan saaran dunta madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa hawsha tan hadday khaldan tahay waa khaldan tahay wax laga qabo inta baan oran lahaa odayaasha kale uga baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay caaqil Saciid Xuseen dhammaan ka soo qaybgalayaasha sharafta leh waad salaamantihiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa Saciid baa hadalkii oo dhan yidhi laakiin waxaan xusaynaa oo halka isu soo taagaynaa intii Saciid ka hadlay inaan qabno aad buu u mahadsan yahay meel aanu ka hadli lahayn buu ka hadlay intaa uu yidhi Saciid waxaan ku daraynaa waxaan nahay waxgaradkii ummadda reer Puntland ummadda Soomaaliyeed ee maanta Boosaaso joogta waxaan u malaynayaa inta naga maqan oo aan maanta howlkan ku jirana way nala qabtaa waxaan ku hadlayno waxaan rabnaa
saddex mawduuc baan rabaa inaan ka hadlo. waxaan rabaa inaan u sheego awalan dowladda Puntland oo madaxweynuhu u mudan yahay dadka islaamka ay wuu khaldamaa, qof walbana wuu khaldamayaa, laakiin qofkii khaladkiisa gartaa u qiimo badan. waxaan aaminsannahay inaad khaldanteen oo aanay idinka ahayn arrintan arrin awla kacdeen. waxaan maanta aanu ku arkayno dekedda Boosaaso oo qof walba oo sawirkeeda maanta arka ama gudaheeda arkaa uu yaabayo, oo aanu arkayno heshiiska khaladka ah oo aan maskax maxaan ku raada qaadata indha arkaan aan qaadan karin, caqli runtii arrintaas fekeraya aanu qaadan karin, oo qof walba la yaaban yahay. waxaan u malaynayaa arrintaa waad ku khaldanteen ulama kicin. waxaan rabnaa idinkoo ixtiraam leh, annagoo shacabkii iyo waxgaradkii dalka ah, inaad arrintaa ka noqotaan, ilaahayna uga toobad celisaan. guud ahaan Puntland saasaan leeyahay. gaar ahaan waxaan leeyahay golaha shacabka Puntland waxaad tihiin dad ixtiraam lagu doortay. waxaan idin arkayna inaad tihiin dad aqoon leh, waxaan idin arkayna dad inaad tihiin alla kacabsi leh, waxaan idinka arkayna inaad tihiin dad badan oo aanu naqaan oo ahayd culimadii baa idinku jirtay. runtii waxayd ku dhacdeen waxa weeyaan wax ummadda islaamka ah iyo ummadda reer Puntlandba ay tahay cawaaqib xumo u ah baad ku dhacdeen. waxaana u malaynayaa idinkuna waad khaldanteen oo lama kaceen. haddaad ilaahay ka cabsanaysaan oo inta aanu aragnay nala arkaysaan maantaad joogtaani ka noqda, oo maanta ummaddiina badbaadiya, oo waxaad hore u saxeexdeen baarlamaanku wuu ka noqon karaa oo sharci baad u leedihiin, maanta ka noqda oo ilaahay kaga cabsada. waxaan taa ku darayaa shacabka reer Puntland u malayn maayo sida aan ka arkayo dad damiir leh ummadda inala midka ay arrintan oo kale ma qaadateen eenu qaadanayno dugsanayno. waxaad arkaysaan maanta haddii layna yidhi war qofka bini aadamkaa wuu kiraystaa, runtii waa arrin la yaab le weeye. qofku gurigiisa dee wuu kiraystaa, waxoogaa manfaca buu ka helaa, bogcaddiisa yar buu kiraystaa, manfac buu ka helaa, gaarigiisuu kiraystaa, waxa waan arki jiray waa caadi. laakiin qof noloshiisa kiraysta, ummad nolosheedii kiraysata oo ummad kale ku wareejisa, waa arrin qariiba wey, arrin qariiba wey. runtii arrin aan u dulqaadan karro ma aha, arrin aan soo dhaweyn karro ma aha, arrin noloshayada ku filan ma aha, arrin taariikhdayada u fiican ma aha, arrin nala ka filan karo annagoo ah dad xadaariyiin ah, annagoo ah dad maxaan ku raha noo ku yaqaano ummadda Soomaaliyeed dadka u xadaaraysan gobolladan ku nool yihiin, inaanu maanta iska adeejino ummad aanan garanayn oo gaalo ah iyo ummad la socota, inaanu u dhiibno noloshayadii, noloshii Soomaaliyeed, oo nidhaahno nagu maamula, oo aan cawaaqibkeenni 9 maalmood dugsanayno doonyaheeni badda khatar ugu yihiin inay ku degaan. arrintaa waxa weeye waxaan leenahay uma dulqaadanayna hanala ka daayo, barnaamijkaana dib ha looga noqdo. waxaan ku darayaa odayaal badan baan uga baxayaa dhallinyarada ciidanka ah ee Puntland, ha noqonina calooshooda u shaqaystayaal, ha noqonina calooshooda u shaqaystayaal, ha noqonina calooshooda u shaqaystayaal. waxaad noqotaa muwaadiniin. waxaan nahay aabbayaashiin, waxaana ku idin qoray, waxaana adeeradiin. waxa weeye dadkiina maanta haddaan idinku badbaadin, yaa badbaadinaya? ilaahay baan idinku dhaariya dadkiina badbaadiya oo kaca, oo annagu idinkaa ciidan noo ah. ciidanka Puntland baanu rabnaa maanta inay dalka badbaadiyaan. waa maalintii ay badbaadin lahaayeen. waxaan rabaa insha allahu inaan kusoo gebagabeeyo taliyaha booliska Puntland iyo taliyaha ciidamada maxaan ku ihahdaa daraawiishta Siciid Dheere iyo ciidamada kale oo u shaqeeya Puntland. haddaanu shacabka nahay uma dulqaadanayno arrinta meesha taal. waxaan rabnaa inaydin u adeegin oo maskaxaha qaldamay aydin raacin, oo aad nala aragtaan waxa aanu aragno. waxaan aad iyo aad u soo dhawaynaynaa oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ganacsatada Puntland oo maanta garatay haddii ay lacagta aqbalaan iyaga waxba kuma aha, laakiin waxay dhib ku tahay shacabkooda wey. waxaan aaminsanahay dooyaha halkaa maanta taagna inay shacabkooda ugu tureen inaanay ku kordhin lacagta, way inagayna fuuraysaa. markabka laga qaado 100,000 kun dadkuu saaraya. waad ku mahadsantihiin baan leenahay. maantana gacmahan isaysanaa. sidii Siciid sheegay, hadday jiri jirta in la yidhaahdo oday koofiyad baclaha oo iska hadlo weeye,
maxaan ku idhahdaa ganacsade aan fiicnayn weeye maanta maxaa la odhan waxa weeye maanta waa dhannahay qabiil baanaan u kala maqnayn odayaal baanaan u kala maqnayn sagtaraanaan u kala maqnayn culimo iyo waxgarad baanaan u kala maqnayn waxaanoo rabnaa inaan ficil muujino xaqiiqatan waa idiin sheegaynaa waa ficil baan muujinayna maanta waan hadlaynaa laakiin berri haddaan wax isbedelin ficil bay isu rogaysaa dhib maaha qofku wixii uu kaga hadla hadal ku tari waayo inuu gacan ku geysto gacan baanu ku geysanaynaa intaanu maalin dhibaatoon lahayn intaanu sanado dhibaatoon lahayn maalin baan dhibaatoonaynaa waa maadsantiin tidiisii ayaa ku hadlay waraday ku hadleena waa waxaan meesha u nimay wadaagnaa waxa way ku dari maayo badan waxaan manayaa arrintan aan hadda laga soo sheekeeyey magaalada mid miyo jooga iyo mid deeq jooga iyo mid tuulo jooga waxaa ka dhacay meesha tan inteena tan maaha boose ku xirane meel kasta waa la ogyahay saaka wadooyinkii dariiqii la maraayay iyo tuulooyinkii waxa mari karaa iyo waxa baabuura waa la waayay kii baadiyaa wuxuu ku leeyahay maxaa dhacay baadiyaa ka yimi arrintaas ina haysataa oo rog ka soo sheekeeyey waa waxa aan la qaadan karin mana filayn sidii talyaanigii waagiina haystay oo halakan dadka la dhacayay shaabuugga oo ninka tukanaya istaag lahaa tabtii baa maanta waji egta wiil ka yimi meesha la yidhaaho maalta ka yimi oo leeyahay hooyaysa talyaaniya laakiin isagu yahuudi waa yahuudi ninkaasaa maanta oo halkaa ay soo taagay iyo wax wato hadda godintana iba goysan buu yiri laakiin gobolkay baa kugu jira waxaa keenana waa inaga nima Soomaaliyeed oo dulaaliin oo inaga ah iyo madaxa ayaa meesha hawsha geystay arrintaas ayada ahna hadda waxay la tahay maanta waa dhannahay waxaan ammaan u soo jeedinayaa ammaan sharaf leh u soo jeedinayaa ganacsatada maalkoodii halkaas aan yahay dhowr iyo toban halkaa dhigan tahay isku xiran ku talagalay dadkooda burburka iyo dhibaatada haysato u turay oo waxooda soo deji waayey iyagu lacagtooda raashinka wax ka saari karaan laakiin ummadday u tureen ummaddaas walaalahooda ayay u tureen marka arrinta iyada ah inagoo isku fikrad ah oo kala harsanayn arrinta iyada ah raalli kama ihmana doonayn qaadana mayno inagoo isku xiran oo dhan oo caaqil iyo oday iyo dumar iyo caruur kulliba arrinta iyada waxaan qaadanayno ma aha ninkaan haddayna iska fujin ninkaan waxaa la yidhi ninkaan erika qaadonima qaato erigii ku fujin kari mayno waa arkaynaa la hadallay oo raggii dulaalinta ahaa oo waday baa hataa raallinka hordada ka taagan waxaanu leenahay ninkaas waynu iska fujinaa yahuudiga ah oo halkaa ka yimi oo gaalka ah waxayn qaado inagoo islaama oo dalkeennii burbur ah oo taas dhahay inoo ku yimi oo saa hadda afartale saa afartale askartii shaqaynaysa dariskooda dooda u baxleeyahay dawle ninkaasu arrintaasu niman yahow nooc kasta leeyi arrintaasu arrin qawma ku tagi mayso ku tagi mayso hadalna wax ka keeni maayo ninkaasu wuxuu u baahan yahay in si toosa iyo shirkadihiisu in la isaga fujiyaa waxaan kaloo leenahay baarlamaanka soo socda oo reer bariga ah oo la yidhi ma sii socda oo reer barigow malanagaa tegayna yidhaah hadda waa nimankaa garanaysa u sheegi mayno shalay inaaga geynay oo qabiil ku geynay oo qoys ku geynay meesha wax mariyana ma arkaysaani hadda waa soo socdaa baa la yidhi nimankaa waxaan leenahay anigu waxaan qabaa fikriyan qabiil qoys kasta ahaadee nin walba uu ninkii ku yimaadaa nimankaasoo dhan masishaan ma filan nama masishaan ku ekaada meesha ka timaado ku ekaada ahe madaxweynihii lacagta idin siinayey ha ku noqda dib ugu noqda anigu nimankaasna waxaan leenahay waa inuu ka digtoonaana arrintaasna waxay la tahay hadalkii ragdoor waa badan yahay horena raggii waa la yidhi waxaankiin waa la akhriyay qodobadii waa la akhriyay waa saxiixnay waxaan kusii takiidaya yaynaan u jilcin yaynaan biqin yaynaan burburkaa ku jirnaa oran yaynaan ogaaja idin haysa
waxaan leenahay arrintaa la xoojiyo meeshaas waxa ay dhisay u fuji lahayn aan baa la galo arrintaasaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu islaamka halka isugu timi oo danaheeda ka hadlaysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa badin maayo waa tii layidhi hala soo gaabayo laba qodob baan rabaa inaan ka hadlo marka hore been baa naloo sheegay been bay noo sheegeen nimankii madaxda ahaa oo badda iyo dekedda iyo arrimaha aan u dirsannay been bay noo sheegeen runtii baanu hellay haddeer beentii waa ka daba tegaynaa waxaan kaga daba tegaynaa run baan kaga daba tegaynaa qodobkaa wey qodobka labaad waxaan ku talinayaa nimankii baarlamaanka ahay oo 66 aynu dirsannay oo haddeer kuwii reer beriga ahaa la soo wado waxaan ku talinayaa waa ina qawraceen nimankaasi reer walba ninkiisa ha qawraco inay maqlaan waa ku celinayaa waxaan ku celinayaa nimankii aynu dirsannay oo xilkeenna u dhiibanay oo baarlamaanka ahaa oo haddeer laleeyahay gobolka bari baa arday sii socda reer walba ciddii uu dirsaday oo qawracday waxa inoo ballana in la beeyo la qawraco inay maqlaaneen aniga ninka hadalka aadan cali dhaanto baa la yidhaahaa aniga ma gabanayo galabta haddaan ku dhimanayo runta kama gabanayo qodobka kale kaa weeye qodobka kale maaha dekeda boosaasood iib maaha war miyaanu iibinaa dekeda boosaasood dekeda boosaasood ma waynu iibinaa iib maaha dekeda boosaasood iyo boosaaso midna iib maaha reer boosaasood iib maaha soomaaliya iib maaha waan ka hortegaynaa nimankii hore odayaasha ahaa iga horreeyey hadalkii ay yidhaaheen baan la qabaa asagaan la qabaa maanta ma ogolin annagoo noolnoole in naga qawraco awal baa waxaa nagu socday qawrac kale awal baa madax dubasho iyo qawrac iyo masiibo kale ilaahgayow naga dulqaad ilaahu naga dulqaad ilaahu tawfiiqi nagu toosi ilaahu tawfiiqi nagu toosi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadaan meesha isugu timi oo guurtida iyo waxgaradka baya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan leeyahay intii hadalka ku hormartay yaanu la wadaagnaa nin kastoo uga dambeeya kii baanu tala wadaag ku nahay tusba wadaagna ku nahay balse waxaa la yidhi wixii aanan filayn iyo fallaadhu waa kaa farxiya ma malaynayn saaka gaal reer maalda ah oo talyaaniya lana yidhi hooyadiisaa talyaaniya isaguna waa yuhuudi saaka inaanu boosaaso isu qabsanno ma malaynayn laakiin waa arrin dhacday waxaase ciid eedaa iskale ciddii noo keentay baanu la saaraynaa wixii halkaa ka muuqda wax waliba dee sabab bay leeyihiin waa la yidhi geela waxaa loogu heesaa 3 midabley 3 magacley ninba si u maal hadalkaa waxaan uga jeedaa kelmadda haddii boosaaso la dabcay si in loo maalo annagu ummadda soomaaliyeed boosaaso siday dekeda soo boosaaso siday u maali jirtay sidii waxaan ahayna ma suuragelayso naga suurageli mayso waxaanu leenahay haddii wax khaldamaan saxay ku fiicayeen ciddii wax khaladay khaladkaa ka noqoto baan ugu baaqayna haddii khaladka laga noqon waayo waxaa ka imanaya wax ka xun intaas waxaan leeyahay ciddii khaldantay anoo aan hebel hebel oranayn dadkii aanu dooranay weeye oo magac kastaba ha lahaadeene khaladku bini aadamku waa khaldamaa waxaan ugu baaqaynaa ha ka noqoto hadday ka noqon weydo waxaanu go-aan noo ah sidii ragga hore u yidhi inaanaan ka qaadanayn nabadgelyo baa go-aan noo ah
taas waa tan kale waxaan leeyahay madaxweynaha soomaaliya ee farmaajo sidii loo sheegay ra-iisul wasaaraha waxaan leenahay arrintaa maanta ka dhacday dekeda boosaaso waxay waraabin jirtay oo quudin jirtay soomaaliya badan amase africa badan bay quudin jirtay annagu waa joognaayoo dee cunihii baa nala haystaaye ummad badan bay wax u ahayd waxaan leenahay arrintaa xil baa kaa saaran ama idinka saarane wax ka qabta baanu idinku baaqayna waxaanu hadalka la wadaagnaa intii hore u tiri waktigii dhowraynaa waxaan kaga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم waxaan salaamayaa dhammaan inta meesha isugu timi oo maanta nooc ka maqani alxamdulilaahi rabbil caalamiin aanu jirin mar haddaan cidi maqnayn intii odaga wax la ogeyd maaha intii kale maanta waxay joogtaa halakan ilaah baanu mahaddaa u celinaynaa sababaha kalifana ciddii waxaa samaysana way og tahay inay dhacayso ummaddaanana way garatay arrimahaana mudday soo socdeen waxaa loogu sheekeeyey dadka inay horumar tahay annagu horumar diidi mayno horumarka dalka annagaa u taagan ganacsatada u taagan ummaddaa u taagan isimadaa u taagan dhammaantaya reer puntland ama soomaali waxaanu u taagannahay horumarinta dalka waxaanu diidnay dibudhiska iyo cunaqabataynta dibudhigga iyo cunaqabataynta iyo gumaysiga baanu halakan ku diidnay waxaan leeyahay hadalka intii hore oo tiri baan ku raacsannahay waxaa la rabaa in meesha keliya laga dhaho waa ku raacsannahay hal qodob baan soo dedejinayaa marka qodobkaasi wuxuu yahay waxaan u jeedinayaa laba qodob weeye qodob waxaan u jeedinayaa ciddaan ka dambaysay waxa kan iyo mas-uuliyaddii dawladda hadday iyaga yihiin iyo haddii cidi la wadaagtay maanta waa u jeedaanin dalka idinkaa xukuma puntland waa aragtaan cuqaysheedii iyo culimadeedii iyo curadadeedii iyo maaragtaa ganacsatadeedii waa aragtaan waxaan leenahay mas-uuliyaddii aanu idiin dhiibannay qaybteed waa aragnay haddaad maantay badbaadisaaniin puntland inaad badbaadisaan baa laydinka rabaa waxaadna ku badbaadinaysaanin waxaas aad meesha keenteen dekedda wiila kanaad keensateen oo aad dadka ku cunaqabatayseen inaad ka qaadaanin saasaa baad maaragtaa ku badbaadin kardhaan haddii ayn arrintaa aydinaan wax ka qaban waa tii la yidhi koofiyad baclaa hadlay waa tii la yidhi nin baa meel ka juujuule ganacsatadu waa dullaal doonyada weeye waa soo karaysaa shilin bay ka qaataanin haddee ninkii shilinka qaadan jiray iyo kaan shilin qaadan jiray maanta waa isu soo baxnay waxaanu idiin sheegaynaa sidii hore loo yidhi wallaahi bilaahi tullaahi waa ku dagaalamaynaa run baan idiin sheegayna waanu ku dagaalamaynaa oo naga dhaba haddii markaa ee aad doonaysaan inaad ku dagaalantaanna soo diyaar garooba waa ka tegaysaan gumaysigaa ka midtihiin haddii kalena inta la kala ladan yahay ha laga noqdo arrimaha caynkaasa hana la badbaadiyo puntland iyo ummadda iyo dadka maatada dushooda yaan lagu cayaarin waxaan leenahay ummadda oo dhan oo puntland bay haysataa ciidamadana sidii hore loo yidhi baanu odhanaynaa baarlamaankana intii hore loo yidhi aan ku raacsannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala baanu raacinay kalana xisaabtamaya waxay ummadda ku dhufteen annagana noo iman maayo nala hadli maayo shaydaan bay la hadlayaan shaydaan idinla hadal shaydaankii idinla hadlaayo u taga iyagana intaasaanu odhanaynaa annaga maanta halkan waxaanu u taagannahay badbaadinta puntland baanu u taagannahay haddii aan cid nooga horraysa aan la helin arrintaasaanu meesha u nimi waana dhacsanaynaa dalka aana ilaahay nagu abuuray oo aanu degannahay wallaahi gadan maayo wiil dullaalna ka gadi maayo annaga waxa weeyaan intaasaanu odhanaynaa hadalkaygana intaasaan kaga baxaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay haddana caaqil saal
boqol iyo afar iyo tobanka qur-aanka ayaan idinku salaamaya ayaanta meesha isugu timi soomaalida waxay tidhahdaa hadal badne waxba taro in yaroo nuxur labaa fiican horta raggii iga horreeyay oo mursal iyo caaqil xuseen iyo cayaantii kaleeto iyo sanweyne iyo rag badan baa hadalkii yidhi haddii qofku hadal yidhaahdaba lama dabagalo ee wax kaloo rayoo ka duwan baa la keenaa horta ilaahay baan ugu xamdinaqaynaa intiina tan muddo shaqaynaysay waa idinla socday kulankaygana maanta uu noqday hoolalkanna waa hoolan waayo hor ku shaqaysan jiray oo ku guulaysan jiray waa hool khayr weeye taas waa idiin sheegayaa waxaan kaloo idiin sheegayaa rag badan baa taariikhaya waxa weeye innagu waxaynu ka tallaabsannay gumaysi lixdankii ilaa waktigaan waxaynu ku jiray xornimo waxaynu ku jiray wanaag waxaynu ku jiray sharaf allahu naxariisee maxamed siyaad barre wuxuu inoo sameeyey deked aan ku xorrayn 30 sano wuxuu inoo sameeyey laami aan ku xorrayn 30 sano waxa weeye horumarkeenu ku garrawaantiin soomaaliya o dhan bay dekedaasu sabargaraynaysa moogta isu sheegi min waa wada ogna kii dhashay baa og kii weynaa baa og nin kasti waa og yahay marka sideedaba hadalku wuxuu ku fiican nuxurka in laga qaato annaga horta hadalku wuxuu noogu leeyay raggii horeto kelmadda ay yidhaahdeen isticmaar maxaasha kale ma ogolin annagoo dhowr iyo 60 sano marayna xurnimo in nin hooyadii talyaanita isaguna yuhuudi yahay kasiirada maalta waa tegay dhowr jeer baan tegey waa aqaan oo halkaa ka yimi waxa weeye marti noqon mayno intaasaanu ku dulqaad samaynay ee ninka la leeyahay cabdiweli oo uu keenay haragaa keenay waa hortayda taagan haragaa keenay ugaasku marka malaha nin xun baa waday wuxuu nin fiican baa waday professor soo noqday maxaaliya ra'iisul wasaarihii Soomaaliya laakiin wuxuu noqday nin dulaal oo dalka iibsanaya marka waxaan idiin sheegayaa ninka la yiraahdo cabdiweli hadda wuxuu la joogaa farmaajo waxa weeye farmaajona waddanka isagaa madaxweyne ka ra'iisul wasaarana khayra ka ah ilaa ra'iisul baarlamaan baa jira dee waxay la tahay annaga hadda waxaan media ka dhibno isagaa inuu kasii dhuun daloolo waxa boos ka soconaya kosta waa bersadka wey oo Soomaaliya wey marka waxaan idiin sheegayaa nimanka la leeyahay waa maxaa la yidhahdaa waa ganacsatada iyo gaadiidleyda aad iyo aad bay umahadsantihiin wadajirkaanu ku socday sideedaba caalamka wadajir baa wax lagu wadaa moogta wadajir baana wax ku fiican yihiin waayo ummaddiina wada maanta lacagta waa bixin karnaa waxa la saari karaa waxa la saarayaa nimanka la yidhahdo shacabkiina oo dooyo daalka ku degay wawdaynayna waxa weeye waxaynu qaadaynona dee inagu ninka waxaan leenahay niyow ka noqo cabdiweliow adiga baarlamaanka min baarlamaanna maalin waxaan warniyow dekeda markaa saxiixayseen miyaydan aan akhrisan documentiga maya nalo kuma dhigin sidaasi si kalaa nalo ku dhigi buy waxaan ummaddan badin soo idmatay ummad dhan baa wuxuu ahaydeen weynana warqadaydan aan iska akhrin documenti aan akhrin soo saxiixdeen bas lacag baa qaadateen horta baarlamaanka meesha inoo jira oo dad wax kale og maaha hal qodob baan idiin sheegaya annaga waxaan sirtaan galayno media kasii dayn mayno cabdiweli wadaan kula hadlaynaa dekadii noo fur gaalkana naga qaad waxaanu kula hadlaynaa tolnimo waxaanu kula hadlaynaa beresidaan kuu dooranay waxaanu kula hadlaynaa wanaag inkastaa khaa'inimo naga gashay khaa'inimaduna ma fiicna waxaan kuu idmanay waa ka tallaabsatay dulaal baa noqotay adiga siciid maxamed raage dekadii baa iibsateen waxa weeye rug baan kuu sheegaynaa naga qaad gaalka yuhuudiga haddii aadan naga qaadin hadda waxa weeye hadha hore maxaa wuxu dhacay ciidamada rag baa iga horreeyey oo la hadlay oo yidhi waxa weeye dalkiina iyo dadkiina difaaca waxay ila tahay inadinaa noqonayn caloolu shaqaysta aad noqonaysa dad muwaadiniina nin khabiirina kollay daraawiista waa hogeeya masiixid dheer waa nin khabiira weye oo wax kale og oo odaya waxaa la odhan jira koofiyad bac laa hadlay adeer koofiyad bacli maayo waa ummadda dalka hogaamisa oo dawladda u ah oo shacabka oo odayaasha oo waxgaradka u ah marka ninka la leeyahay cabdiweliow warkayaan ku dheh rag kale sugaye cabdiweliow ninka la soo hadaloo meesha ka dhaqaadi 10 cashana boos xiraan mayso waxa weeye waa habeenkii xaloo tiga weeye inay xiraato anigu waxaa la yidhahdaa caaqil saal cabdisalaam yuusuf faahiye 25kii baa talyaanigu madaafiic la xadhay boosaaso ummaddii waa qaxday oo wayna callum taagay si ummaddu nabadgeliyo marka maanta
kaa yeeli mayno cabdiweli oo dalkii inay iibsato xaasha kalla soo hadal oo ninka naga qaad adeer sax ma rabo jooji waxa weeye adeer cabdiweli oo naga qaad ninka hadhowdii waxa weeye hadal badni khayr male tol baan nahay waa ku dooranay madaxweynaan nu ahayd wan yeer baa ku haray khaa'innimaa gashay naga qaad haddii aadan naga qaadin haddee waxa weeye ximyataabad baa imanaya intaa ogow waxa weeye farmaajo adiguna dalkaada madaxweyne lagu doortay adiga ra-iisul wasaarahaaga iyo ra-iisul baarlamaankaaga dee base waxa ka dhacaya waa aragtaan dee aday taladu kuu taalo waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم marka hore ilaah baan uga mahad celinaynaa shirkan ergada ah oo ilaahooda codsanahaya oo isu yimid oo dantoodii maslaxadooda ka hadlahaya ilaah baan uga mahad celinaynaa awoodaan leenahay uma inaan rabbi baynu isugu nimid isagaana xukumoona keenay ayada ilaahaasaan uga mahad celinaa marka hore marka labaad bulshadan dhan oo halkaan isugu timid oo reer Puntland iyo Soomaaliya oo dhan qaybo badan ku jiraan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka dhamaantood in walba meesha uu ka joogo marka labaad mar walba anigu waxaan horumarinayaa ganacsatada waxaan leeyahay waa mahadsantihiin Allah inii gargaaraan leenahay mar haddaad dadkiina u gargaadheen oo ilaaliseen oo dhibta jidha ka hadasheen oo noogu yeedheen oo ay noo wada muuqatay waa mahadsantiin baan leenahay hana ka fuqina hana dhaqaaqina garab iyo cod iyo awood baynu garab taagannihin adinku ha dabcinayn leenahay marka labaad waxaan leenahay Soomaaliya gumaysi badan bay soo madhay taariikh badan baan ka haynaa wax badan baa la soo maray gumaysiga la soo marayna cid walba meel bay ku gaadhay iyadoo Talyaani iyo Ingiriis iyo dad walba haysto dad baa iska fujiyay oo u kacay oo iska dhiciyay ayagoon awood lahayn oo qalab lahayn oo xiniyo lahayn oo maata yaa rag iska fujiyay waliba ina ka aqoon yaraa raggeena kan ina kana tabar yaraa ina kana gaadi yaraa ina kana dhaqaale yaraa haddaynu maanta inagoo ilaahay awoodna siiyey oo maal la siiyey oo garashana siiyey oo awood leh haddaynu nin kaligiisa iyo niman dulaalin oo la socday iska fujin weyno hadda nasiibkeen liidashadu inagayna saarantay ayaga maaha qofku waa inuu gartaa waxa uu yahay iyo waxa lagu yahay kaan ka gudbo waxa la yiri 42 qiyaastii waxa soo degay Berbera nin Ingiriisa wuxuu u yeeray odayaashii meel walba dulaal waa joogay xilligaas waa jiray markuu u yeeray lacag buu keenay wuxuu odayaashu lacagtaan ay leeyihiin halkaan ay leedahay dhulkana waa degaynaa arrinta saasaan ku budaynaa waa la yeelay qayb baa yeeshay warni hebel yaada maqan baa hebel nin baadiya ka imaanaya baa loo sheegay arrintii soo warankiisa watu yimi wuxuu yiri Berbera go lacag lagu rido maaha lacag go ma qaada Berbera ka weyn Berbera go ka weyn wax go lagu rido Berbera ka weyn ka weyn waa nin kaligiis waxa la rabay marka ninkaas waa laabay wuxuu waday ninkii dib buu cayshay bahbi waa hal nin fikirka duxakeen markii dama lagu raacay haddaynu maanta ka dhawaaqayna nin anigu nasiib darran u arkaa waxa ina gaday oo ina sida waa maamulkaynu dooranay inkiina ma sito aynagaana dooranay hadduu madaxweyne yahay hadduu baarlamaan yahay hadduu wasiir yahay hadduu aynagaa dooranay raggii u halgamay oo lacagta ku baxshay oo garabka siiyey baa meesha fadhiya waxa oran karnaa naga daabti kuwaanu dooranay marka haddii maanta cabdiweli iyo raggiisa waxa u haray waa ayaamo dee annagu marka sugi mayna haraatida dambe waxaa la yidhi sanadka tegey haraatidiisiiya ka soo socda hagdidiisa lahu naga nabadgeli baan leenahay inaan sugno ma ahan haddii dad la eedaynahaya iyo haddii dad la caayahaya iyo maanta Soomaaliya waa isku mid Puntland ma ahan Puntland waxay masaariiftaa ilaa Muqdisho ilaa Itoobiya ilaa Soomaaliland meel walba dekada yar baa yaa gaarsiisa wax guri aan saaka baahidaas ka jirinna ma jidho waxaan leeyahay ragaba ku rageeda
maanta aynagayna haysataa mana yeeli doonno mana diiday mana ka dambaynayno qofku waxaa la rabaa inuu ogaado naftiisa meesha ku jidho ninkii horaa sheegay wuxuu yidhi qofku waxbaa kiraysan karay laakiin hunguriga lama kiraysan karo cunnadaad ku madho meesha tan qofku halkaanuu liqaa wax ka liqaa haddii anigu halkaanaan degahayaa ninkii yidhi haddii ima degaysa halkaan meesha keliga anaa wax ka liqa marka dadku waa inuu ogaadaa dekadaanu waa hungurigii soomaaliya ninkii hungurigaan yidhaahdo waa anaa dhex fadhiisanahayana xaq inooma ahan inaynu dhowranno af iyo yad iyo addimo iyo cod iyo xiniyo inta waa ku dagaalamaynaa war ma sideen nin baynu ka liidanaa oo soomaaliya oo dhan horaysay oo dalkoo dhan qabtay haddaynu maanta iska dhicin weydna si mali aan kala tagno baarlamaan ha sheegin wasiire ha sheegin madaxweyneyaal ha sheegin waxba maahan waa wiilaa dirsateen ma ayagii markay iska dhicin lahayn shalaka waa dirsateen baa oran wada war iga tag waxba imaad qabane anigu waxaan leeyahay intaasaynu ku salaamahayaa hadalkuna halkaasaan gaarsiinahayaa waqti badan baa jira wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad uga xumahay inay maanta la soo kulmaaniin dadkii doonyaha lahaa dadkii kalluumaysanayay tijaartii dadkii burburka lagu badbaaday oo xoolahooda dowladnimada ku dhisay in maanta dekedoodii nin caddaana oo meelu ka yimaan aqoon inuu dhex fadhiyo arrintaas waa arrin aanan ilaaweyn oo dib noo soo madhay dadka reer puntland ama dadka soomaaliyeed oo diiday gumaysigii gaalada caddaanka aniga way xaajiminaya indhaha markuu weynaaday ka dhacay waxaan kula wo itaaliya lacag baan haysanay lagu soo daway wuxuu yidhi in gaal itaabtaan diidanahay inay indhalbeela ay rumin annagana imaaraad barro in la gumaysto mayna qabataa deked maaha wuxuu waa gumaysi ninkii dalka soomaaliyeed oo aad dekadda iyo laamiga ku hesheen kala googooya ma deked buu kuu dhisaya cadan baa daris la ahaydeen intiina waa bacmusir nimankii reer qandal way u badan yihiin cadan tegi jiray haddaad dhegaysataan jasiira dadkii yeman deganaa waa la gumaystay badda ma aadi karaan ma kalluumaysan karaan sida hadda inagana ku dhacday xataa waxaa dhici doonta inayna badda ku dabaalan karin silig baa lagu wada xidhanayaa kalluumaysatada 3 silig baa laga xirtay inagana 3 silig baa laga xidhanaya waxayna xukuumo ma arki doono wuxuu dekad maahay qaranka Soomaaliyeed baa la kala googoynayaa cabdiwali waxaan leenahay waxaan ku idmanay waa ka baxday officially waad ka baxday tanu dekad ma aha dekad waxa Soomaaliya ka dhistay berbera iyo xamar iyo kismaayo dekadaha waxa ku soo xita mabda'iyan waa u qaldantay baasho baraatikahan waa u qaldantahay mabda'iyan waa u qaldantay waxa la yiri dekad baa la idin dhisaya dekadaydi baan aan ku haystaa ma yaga noo dhisay dekadda noo haystaan horaan uu sheegay dadkay maqli waayay war dekad halka ah ka dhisay baan diiday dekadda noo dhismayaan maxaa kalluumaysatada iyo ganacsatada ku wareejinaya hadii wax dhisayaan dekad la noo dhismaayo badda oo dhan Ethiopian baa la siiyay oo badana ilaalin doona dekadda aan leedihiin inagii ninka la siiyay maxaynu ku kala qaadan percentage-ka aynu dekadda ku wadaagno lagu wareejiyay la idin sheegay boqolkiiba 8 baa laynoo reebay 720 Ethiopian baa leh 60 wax leh cadaanka nimanka imaaraadka gaalo soo dirsatay baa leh dekad horta maleedin boqolkiiba 8 baa la idin reebay may haadiya ka sheega wax lagu heshiiyey waqooyi oo toodana la katay boqolkiiba 19 baa Itoobiya qatay inoo ka aamus badan baa layna deynaya 720 baa laga dhigtay sayma wada wax waxa soo lagu qadantay ma oran karo dadkeen meesha u dhiibinay ceebaan ku dhacday maanta laynoo waqlalay waagi hore nin walba abiis u waqlalay khasaaritaas ahayd maanta ogahay laynoo waqlalay dekada iyo gumaysi iyo qaranka Soomaaliya in la kala jarjaro yeelmino sidaa maynala tahay inaan dekedeena layna ka qaado waxaan kaloo ku daraya madaxweynaha waxaa la rabaa 4 kaga soo jawaabo oo ninkaan naga kaxayso dekedeeda noo furo intaa ka badan sugi miino waxaan u sugaynaa meesha ciidamada wiilasha kala hadlaysayna ragga dekeda jooga waa raggii dalka gurbaadiyay kun goor khilaafyada qalin jiray waa wiilasha ugu fiican oo Puntland jooga ciidamadeenu inagoo soconayeen galeena
qori qaadan mayno afar saatu ka soo jawaabay dekada gudaheena galayna dekadeena fariisanayna dooyaheena socod inaga ismaamuleyna maamul ma haysano dowladda qaranka waxaan leeyahay farmaajo waxaa kula talinaya anigu ma moodayn horta nin dadka uu ka soo jeedo ka dhashay dalka isagoo nool in hoostiisa la kala googoosan karo xilka haddaan sideedii farmaajo uga baxayn ninkii kaa horreeyey oo madaxa xirnaa oo mareexaan dowladnimada noogu wareeji shan maalmood dekada kismaayeed baa carabku u socota inay qaato baraa way rabaa inay qabsadaan tanay qabsadeen berberay qaateen qarankaa xukumaysaa muxuu yahay nimanka kismaayeed ku shirshiraya aday rabaan inay daalax kaa soo qaataan iyo dhaqaalaha dalka lagu difaaci lahaa intii kale gooste ama waxaanu taageersanahay nimanka dhalinyarada oo farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa adigu waa jilicsantahay ra-iisul wasaaraha shaqada wadda ninkaasaa ka adagay wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxgaradka aqoon-yahanka dhallinyarada acyaanta meesha isugu timid dhammaantiin waan isalaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib anuu hadal badan ma jeclayn inaan idhaahdo horaan uga hadlay dekeddan iyo d b wall intaan kuleelku gaarin dadka reer boosaaso waana noo muuqday dhibaatadaani mid ka weyn waana soo socota haddii lagu sii eegto waxaan qabaa odayaasha iyo waxgaradka maantay inta nool ee ummadda u talinaysa ayaa ka mid tihiin waa laydin weydiinayaa ummaddiinna ciiddiinna inaad ilaashataan oo aad difaacdaan wey d b wall waa kambeni laga leeyahay imaaraadkana waxa uu leeyahay dana siyaasadeed oo dhaqaale adduunka maanta waxaa la isku hayaa waa dhaqaale maranbiyoodka biyaha dekedihii imaaraadka ee freebortiga ahaa adduunka haddeer waxaa moodaa inuu ka sii yaraanayo oo jina iyo turkiga iyo iiraan ay doonayaan dekado ay toos u geeyaan ganacsigooda imaaraadkana waxa uu ku shaqeeyaa waxaa weeye afrika ayuu ka ganacsadaa alaabta ay keenaan jina iyo turkiga ayuu afrika ka qaadan jirtay suuq buu ahaa wuxuu dareemayaa in waddamadan afrika u dhow soomaaliya ay ka mid tahay ee aan gudaha ku jirin badda khaliijka inay fursad haystaan haddii dekado waaweyn laga dhiso inay suuq noqon karaan freeport iyo afrikana u dhowdahay waddamada kalena ay isticmaali karaan dana badan oo siyaasadeed oo dhaqaalaha jira madaxdeennu madaxda maantay weeye anu ma aqaan anigu dadkii maamul ka soo shaqeeyaan ahaa 2003 aan wasiir ku-xigeen ka ahaa dekadda waa aqaanaa boor jaajkiga boor cliniska iyo siday u shaqeyso dekadda waxaa jira dhagar weyn maantay dhulkeenna gumaysi gacantiisa uma gelin karno nin bool la yidhaahdo inuu dekadiina maanta idinku xukumo nasiib darro weyn wey dadkii waddanka u talin jiray waxna rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam marka u horreeya waxaan nahay dad islaama in ilaahay ka cabsano naftayda iyo nafteennaba waxaan u dardaarmayaa cabsida ilaahay wey marka xiga ilaahay aan weydiisanno ina nooleeyey oo ina ku abuuray waddanka aynu joogno inuu maslaxadda aynu doonayno inala qabto isagaa wax qaban kara isagaa la hoos tagaa aynu weydiisanno inuu maslaxaddeenna inu ku geeleeyo aynuna u noqonno oo aynu ilaahay istikfaar aynu ula noqonno hadalladii kale waa la iga horreeyey laakiin qodobka furi waxa weeye horta marka u horreeya aan ilaahay istikfaar dalabno ummadda ilaahay wuxuu ugu talagalay islaam hadday yihiin inay manhaj buu u sameeyey diin buu u sameeyey inay diintaa ku dhaqmaan oo manhajkaa ku socdaan buu ugu talagalay meeshaynu ka joogno waa aragtaan marka u horreeya meesha furi waxa weeye horta ilaahay inaan dembi dhaaf weydiisanno nin walbi meeshu joogo taa markaan ka baxo waxaan leeyahay doonyaheennii inoo siday rarka waxay taagan yihiin badda xoolihii
kii gaariga siday iyo kii maxjara ku jirana nin walba mid walba gaarigii iyo maxjarkii buu taagan yahay aniga waxaan qabaa horta waxbaa jira oo adduunka caalamka waxay indhaha ku hayeen soomaaliya ma 15 sano jiraysaa ma 20 bay jiraysaa khayraadka ku jirana waa kayd waa qasnad waaba iska soconnaaba 25 iyo 30 sano iyo waxaan qabaa sideed kuwa aaminsan waa dadka gaalada ah weeye nin ilaahay ku xiran oo islaam ah lama soo afjari karo waxaan maanta marka warkaa dubay iyo sacuudi xoolaheennii bu xiray waxa la xoolahay ka guleeyihiin xoolaan xiro ilaahay ilbu noo furay indhahay ku hayeen halkan waxay boosaaso turkiga magaalada tagay wixii waxaan ka dhigayaa dekada waxa ku dhow raas casir raasigii oo raas casir la oran jiray ku dhow oo caalamku ka shidaal qaat dekada hadii laga dhiso marka caalamku isugu yimaado mareero doon ma la deganaanaya maya way anu marka waxaan arkaa reer baadiyaan ahay baadiyaan ka imi qayladaas ay keentay waa maalintii ugu horeysay aan soo taago magarafon maalin iskoolka lacag lagu daray maalintaas noo istaagay waxaan leeyahay marka ilaahayna aan u noqono arrintaana yeeli mayno dadka odayaasha iga horeeyaan la qabnaa ilaahayna weydiisano ilaahay hadduu inaka fududeeyana ilaahay aan ugu xamdi noqno hadday fududaan weynana ilaahay baan la cuskanaynaa waan iska celinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل دقيقة waxaan siinaynaa gudoomiyaha kalluumaysatada oo soo isaguna xog wareysan. Okay, Musa Ali Jaamac soo inoo akhriyo bayaanka midna ogaada mudaharaad baa magaalada kale ka socda oo hadda noo soo sheegay mudaharaad taasna Musa kale soo dhaw إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وسلامتين لمانتين أخيار تمشي سوتمي ومقرن ساي بلشة قيبه هذا كل دوان ككوبان وحنون ملاينا يا صومالو waxay tiraahdaa dhiriga waxa kuleelka ka keenay karka ka keenay waa kuleelka dhibaatada magaalada iyo dadweynaha iyo magaranaysa bulshada soo saameysay ayay intani ka daqmatay magaranaysa oo dhibaatada shacabka soo wajahday ayaa xanuujisay maadaama ay yihiin dad mas'uuliyiin ah oo mas'uuliyadu nin walba meel buu ka joogaa anigu marka shirkani maaha shir isimo iyo magaranaysa ay isugu yimaadeen oo lagaga hadlayay barnaamijkaas laakiin wuxuu ahaa arrin keentay kuleelka iyo dhibaatada bulshada iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan taabatay anigu marka waxaan ka hadlayaa laba arrimood baan ka hadlayaa wixii magaranaysaay arrinta ku saabsanaa oo dhan waxaan u maleynayaa odayaasha iga horeeyay haday taariikh ahayd iyo haday magaranaysaay tan hadda taaganba tahay waa laga soo hadlay inagu ka shacab ahaan reer Puntland markaan nahay waxaynu dooranay nidaam iyo dawladnimo in magaranaysa aynu samaysano Soomaaliya markay burburtay waxaan u maleynayaa wixii Soomaaliya iswaafaqsanaa cidii ugu horeysay oo wax nidaam ah oo ay ku midaysan yihiin samaysatay baynu ahayn isbadeeni waxna dhinteen hadeer waxna ay daba joogaan khayr Allah siiyo ayaa arinta ka soo shaqeeyay wayna ku soo caana maalnay waa ku barwaaqownay Soomaaliya intii markaa dawladnimo baahi u qabtayna wayna ku dayatay waana lagu guuleystay arinta markaa inagu hadaynu dawladnimada nidaamkii dhisanay dawladuhu way soo bedelayeen oo maalinba madaxweyne imaanayay oo tagayay Cabdiwali inaga dooranay baarlamaanka 66 ah inaga dooranay beel kale kama iman Talyaani iyo Maaltana kama iman waa dadkeeni waa wiilasheeni
waa ilma adeerteen waa intaynu inagu geysanay oo niri maslaxadeenna iyo magaranaysaa iyo mustaqbalkayaga ka shaqeeya annaguna danahayna iyo magaranaysaa iyo wixii hoose annagaa ku filan maanta waad aragtaan dhibaatada ummadda soomaaliyeed gaar ahaan guud ahaan gaar ahaan reer puntland soo wajahday waxaa sababteeda koowaad anigu aan saarayaa waxa weeye baarlamaankii aynu dirsannay iyaga ayaa madaxweynaha inoo keenay waa la qaadanay haddii waxaa la rabay wixii aan inoo cuntamin oo ummadda shacabka ay dooratay oo meesha geystay aan u cuntamin inay ka joojiyaan bay ahayd hadallada ma garanaysaa iyo baarlamaanka iyo xukuumadda ka dhexeeya waa dareemaynaa waxba ma qarsoona maanta hadalka madaxtooyada dowladda federaalka ah saaka ka soo baxa isagoo aan soo bixin ayuu suuqa yaallaa kan puntlandna iska badaaba marka waxaan leeyahay nimankii baarlamaanka ahaa oo arrintan ansixiyey haddii ay ku talagaleenna hashi waa galgalanaysaa maandaaq ahayd maandeeq hashi ahayd waa galgalanaysaa haddii aysan ku talagelinna ha ka fiirsadaan arrintaas oo dib ha ugu noqdaan madaxweynuhu isagaa u keenay arrintan iyagaa la qaatay iyagaa noo soo gudbiyey annaga horumar baa naloo sheegay in dhaqaale soo kordhayaa naloo sheegay in dhallinyaradan baduhu ku dhammaadeen oo tahriibtu baabi'isay in ay shaqo iyo dhaqaale iyo nidaam ka helayaan baa naloo sheegay wixii naloo sheegay waxaanu leenahay waxbaa bedelan wixii naloo sheegay oo madaxweynuhu noo sheegay oo baarlamaanku noo sheegay waxbaa bedelan reer puntland khaasatan reer boosaaso horumarka ma diidana waxqabadka ma diidana waxa weeye in dadka dhibaato iyo majaaco waxaa la yidhi ninka waxa soo socda aan arag waxa jooga ma arko waxa intaa ka qaylisiinaysa waxa weeye waxa soo socda dhibaatada soo socota oo halkaa ka soo socota gobolka bari oo saamayn doonta soomaaliya oo iska dhan oo haddeerna aad maqlaysaan in baabuurtii gaadiidkii xamuulka ahaa oo boosaaso raashinka ka qaadi jiray inay maanta berbere iyo magaranaysaa iyo burco ay raashinka ka soo qaadayaan oo halkaa lagu kontaroolayo lagu baarayo looma baahna marka walaalayaal dalkanu wuxuu u baahan yahay wax isku wada oo isku dhaqaaleeya oo dadkiisa iyo shacabkiisa iyo ummadiisa isku wada ayuu u baahan yahay in gaajo iyo dhibaato iyo fakri iyo dagaal sokeeye iyo barakac in loo horseedo dadkanu uma baahna akiibta iyo wasiirka dekada ilaa badna ma leh waa tahay bayaanku wuxuu ku socdaa ugu horeyntii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxaa ogeysiin la siinayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya waxaa ogeysiin la siinayaa wasiirka dekadaha dowladda federaalka soomaaliya waxaa kaloo ogeysiin la siinayaa wakiilka qaramada midoobay u fadhiya soomaaliya waxaa ogeysiin la siinayaa safaaradaha fadhigoodu yahay soomaaliya ee ka kooban European Union, America, Italia, ingiriiska iyo Denmark qoladaas oo lagu magacaabo saaxiibada soomaaliya waxaa ogeysiin la siinayaa dowladda Puntland sidoo kale waxaa ogeysiin la siinayaa BO Port DP World ujeedada bayaanka ama dacwad ka dhan ah heshiiska dowladda Puntland ay la gashay shirkadda B&O Port iyo PD World kadib markii shirar badan ay yeesheen beelaha degan gobolka bari degmada boosaaso shirarkaas oo ku saabsanaa heshiiska dowladda dekada boosaaso ay la gashay dowladda Puntland shirkadda la yiraahdo BO Port and DP World markay si dhab ah u qiimeeyeen heshiiskaas waxaa u soo baxay beelaha qodobada soo socda kow in heshiiska ay dowladda Puntland la gashay shirkadda BO Port DP World aanu ku fadhiin sifa sharci ah maadaama ilaa hadda aan lahayn nuqul laga akhristo ama laga garan karo heshiiskaas waxa uu ku saabsan yahay labo
beeluhu markay arkeen taariikhda iyo subcad xumada shirkadda BO Port iyo DP World ay ku leedahay mandaqadda sida maamul xumada ay ku samaysay Mukalla, Jabuuti, Cadan iyo berbero hadda laga dacwoonayo. 3 beeluhu markay arkeen maalgashiga ay sheegeen oo ah 336 milyan oo dollar inuu aad uga badan yahay in 450 mitir lagu dhiso. sidaa daraaddeed dad khubaro ah oo xeeldheerayaal la weydiiyey waxay caddeeyeen in lacagtaa lagu dhisi karo deked weyn oo caalamiya oo intaa ka weyn. 4 markay beeluhu arkeen B&O Port iyo DP World inay dayactirayaan dekadda Boosaaso oo dowladda Talyaanigu ugu deeqday shacabka Soomaaliya 1988 waxaa u muuqatay inaanu jirin dhisme cusub. 5 markay arkeen in muddada heshiisku uu yahay 30 sano iyadana waxay u qiimeeyeen in ay tahay muddo aad u dheer oo dhibaato ku ah shacabka iyo dhaqaalaha ummadda Soomaalida. 6 markay sheegeen in 100 nautical mile waxaa la yidhahdaa waa tirada badda lagu cabiro, halkii nautical mile wuxuu u dhigmaa 1 kilomitir iyo 89. macnuhu waxa weeye 189 mitir oo waqooyi ah iyo 189 oo koonfur ah. wax mashaariica oo horumaran oo laga samayn karaa ma jirto. 6 markii ay heshiiska wareejintu u keenay inay iska hor yimaadaan dadweynaha reer Puntland iyo xukuumaddu, taasuna ay keeni karto xasilooni darro iyo khalkhal amni. qodobka kale markay arkeen laaluushka lagu bixinayo si uu u hirgalo heshiiskaas uu muujinayo inuu yahay heshiis sharci darro ah oo xaaraan ah. 9 markii shirkadda BO Port iyo DP World lagu wareejiyey dekadda waxay soo saartay khidmado aad uga cajabiyey yani ganacsatada iyo dooyalayda, taasoo ayaan qaadi karin culaab weynna ku ah dadka ka ganacsada dekadda Boosaaso, taasoo keentay inay xirnaato 8 maalmood. soo saama ugu dambeyntii in dowladda Cumaan oo ah suuqa ugu weyn oo ay la xiriiraan ganacsatada reer Puntland kuna xiran dekadda Boosaaso, markay ogaadeen in DP World lagu wareejiyey inay yidhaahdeen waa ka fiirsanaynaa ganacsiga aanu la yeelanayno reer Puntland. go-aan ganacsatada, waxgaradka, culimaa udiinka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland waxay go-aan ku gaareen qodobada soo socda. 1 in aan sinaba loo ogolaan karin heshiiska, maxaa yeelay wuxuu si cad uga soo horjeedaa danaha dhaqaale ee ummadda gaar ahaan reer Puntland guud ahaanna Soomaaliya. qodobka 2 in sida ugu dhaqsaha badan mas-uuliyiinta BO Port ninka lagu sheegayo Paul ee maamula dekadda uu si degdega faraha ugala baxo maamulka dekedana lagu soo celiyo sideedii hore oo caadiga ahayd. 3 in dowladda federaalku aanay u fududayn hoggaanka Puntland una xalaalayn maadaama hadda uu joogo Muqdisho heshiiska sharci darrada ah ee maamulka Puntland ay la saxiixdeen shirkadda BO Port and DP World. gunaanad dhammaan waxgaradka gobolka Bari si toos ah waxay u xaqiijinayaan in ay ka soo horjeedaan inaanay ka soo horjeedin mashaariicda horumarineed ee dalka laga hirgelinayo, maxaa yeelay iyaga lacagtooda ayaa lagu dhisay dekadda Boosaaso intuusan dhammaystirin Talyaanigu. dariiqa hadda ka socda
ceel daahir iyo iyaga ayaa lacagtooda xoogooda bixiya marka ma aha dad loogu hanjabi karo yacni waxay ka soo horjeedaan horumarin marka waxaa lagu soo gabagabaynayaa in aanayan ahayn dad ka soo horjeeda mashaariicda horumarineed balse ay u heelan yihiin habeen iyo maalin heegan ay u yihiin wabilahi towfiiq waa mahadsantiin